Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka telefishinka Hon Cable oo caawa idinkaga imaanaya xarunta TV-ga uu ku leeyahay magaalada Muqdisho. Anigoo Axmed Saciid Axmed ayaa warka idin soo jeedinaya qodobada wararka ugu doorka roolana waxa kamida madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta wadanka Sacuudiga wuxuu kula kulmay boqorka wadankaasi iyagoo ka wada hadlay xiriirka u dhaxeeya labada dal. xiisad siyaasadeed oo aad u xoogan ayaa waxay ka taagan tahay magaalada Cadaado taasi oo u dhaxaysa madaxda maamulka Galmudug waxaana maanta magaaladaasi gaaray xildhibaanada labada aqal ee dawladda federaalka ee laga soo doortay Galmudug si ay xiisadaasi u xaliyaan. dawladda Nigeria waxa lagu eedeeyay inay qasab ku soo celisay qaxootiga wadankaasi u dhashay. shirkad ku taala wadanka Ingiriiska ayaa waxay hindistay baabuur ku shaqeynaysa korontada waxaana lagu wadaa in la dhameystiro marka la gaaro sanadka 2020. qaramada midoobay warbixin ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in caruurta ku nool wadamada ka hooseeya saxaraha aanay helin waxbarasho heerkeeda uu sareeyo ama waxbarasho ku filan. intaasi waa qaar kamid ah qodobada wararka aan caawa idinkugu hayo ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan.